qarax dhaliyay musiibo qaran kaasi oo sababay khasaaro naf iyo maalba leh wixii markaasi ka dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya hay'adaheeda kala duwan maamulka gobolka Banaadir iyo dhalinyarada gurmadka qaran ayaa bilaabay dadaal lagu caawinayay dadka dhibaatada gaartay iyo xaqiijinta inta uu baaxadda yahay dhibka halkaas ka dhacay waxa la bilaabay daminta goobaha ay qaraxaasi dabka gaarsiiyay iyo badbaadinta dadka ku hoos jiray dhismayaasha ku burburay qaraxa labo duugista meydadka la helay iyo isbitaal u qaadista dhaawaca dhammaantiis gaar ahaan wixii daran in dibadda loo qaado saddex samaynta gurmad qaran oo shacabka Soomaaliyeed hormuud u yihiin iyo muujinta dareen ka falcelinaya inaan loo sii dulqaadan doonin gumaadka shacabka Soomaaliyeed haddaba saddexdaasi talaabo waxaa dhinac socday in taariikhda markii ugu horeysay la sameeyay diiwaangelinta xogta inta qof ay ku geeriyootay kuwa ku dhaawacmay iyo hantida burburtay taasi oo fure u noqonaysa sidii dadka dhibanayaasha gargaar degdeg ah loo gaarsiiyo sidoo kalena xasuustaas aysan sahal inooga bixin sidaas daraaddeed dawladda federaalka Soomaaliya oo garabsanaysa dhalinyarada samafalayaasha ah ee u istaagay caawinta shacabkooda waxay idinla wadaagayaan in howlgalkii wajigiisii koowaad soo dhamaaday isla markaasna ay idin sheegayso wixii halkaas ka dhacay inay tiro ahaan ay yihiin marka la isu geeyo dhaawac iyo dhimashaba 642 kuwaasi oo kala noqonaya sidan waxa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen 358 ilaa hadda waxa nolol iyo geeri lagu laayahay dad gaaray 56 guud ahaan dhaawac isbitaalada la seexiyay waxay gaarayeen 228 waxaase dibadda caafimaad ahaan loogu qaaday 122 oo la kala geeyay dalalka Turkiga, Suudaan iyo Kenya waxa isbitaalada Muqdisho markii la daaweeyay ka baxay dad iyagana gaaray 99 qof oo markii la daaweeyay halka ay caawa jiifaan ilaa 7 qof oo dhaawacyada ah haddaba sidaas daraaddeed dawladda federaalka Soomaaliya waxay tacsi u diraysaa dhammaan qoysaska eheladooda ay ku geeriyoodeen waxaana ay u ballan qaadaysaa kuwa dhaawacmay inay xanuunka la qaybsan doonaan ugu dambeyntii waxa dawladda federaalku ay magaca ka bedeshay isgoyska Zoobe iyadoo loo bixiyay isgoyska 14 Oktoobar taasi oo aan ku xasuusan doono dadka aan weynay dhibkaasi mahadsanidin